maxkamadda sare ee Puntland ayaa 17 maxbuus oo Iiraaniyiin ah waxay ka sii deysay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kuwaas oo horey loogu eedeeyay jariif sharci darro oo ay ka sameeyeen xeebaha bari ee Soomaaliya warkan waxa inoo soo diray Maxamed Muuse Tarsan maxkamadda sare ee Puntland ayaa u fariisatay dacwad ka dhan 17 maxbuus oo u dhashay dalka Iiraan oo horey xukunno kala duwan ay ugu rideen maxkamadda rafcaanka gobolka Bari iyo tan darajada koobaad ee Puntland doonida Al-Saciidiya oo laga leeyahay dalka Iiraan oo aan wax ruqsad ah ka haysan Puntland ayaa si sharci darro ah uga kalluumaysan jirtay xeebaha Puntland wakiilkooda Soomaaliya ayaana ahaa muwaadin Soomaaliyeed maxkamadda sare ee Puntland ayaa guda gashay dhageysiga dooda dhinacyada xeeraalinta iyo qareenka difaacayaasha 17 shaqaalaha ah ee ka howlgalayay doonida kalluumaysiga sharci darrada ka waday biyaha Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland Nuur Ciise Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday eedeysanayaasha iyo doonida reer Iiraan maxkamaddu waxay wax ka bedeshay xukunkii maxkamadda darajada koowaad tirsigiisu ahaa 95/2017 kuna taariikhaysnaa 12 bishii 10aad 2017 xukunka maxkamaddu wuxuu noqonayaa sidan soo socota maxkamaddu waxay sii deysay ganaaxa iyo xabsigii eebkii dhammaan ka jabisay xukumanayaasha ka kooban 17 xukumane maxkamadda sare ayaa Puntland u xukuntay inay la wareegto doonida Al-Saciidiya halka kabtankii doonida oo geeriyooday bixinta magtiisa lagu xukumay mulkiilayaasha shirkadda doonida soo dirsatay waxay u xukuntay doontii Al-Saciidiya dawladda Puntland maadaama ay ku kalluumaysanaysay si sharci darro ah haba yarto wax ruqsad ah haysan kuwa dhammaan ka kalluumaysan doonana sidaas ay maxkamadaha iyo hay'adaha garsoorka diyaar ugu yihiin in dawladda lagu wareejiyo iyadoo qodobada sharciga ah xukunku uu ku soo bixi doono magtii marxuumka waxa lagu xukumay shirkadda doonta wixii khasaare meesha ka dhacay oo dhaawac iyo hanti iyo dhammaan waxa mas'uulka ah shirkadda doonta sharci darrada ku soo dirsatay dhinaca kale saraakiisha maxkamadda sare ee Puntland ayaa kormeeray xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso oo ay ku xiran yihiin maxaabiis Soomaali u badan oo dambiye kala duwan loo haysto waxaana ay maxaabiista ka wareysteen xaaladda xabsiga ay ku nool yihiin iyo caqabadaha dhanka nolosha ka haysta qaybo kamid ah maxaabiista ku xiran xabsiga weyn ee Boosaaso oo dambiye fudud loo haysto ayay maxkamaddu amartay in xabsiga laga sii daayo ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Boosaaso